dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in Saakiil ay hadda ay ku dagaalamayaan deegaanka Nuur Dugle ee hoostaga degmada Aadan iyo Valley gobolka Shabeellada Dhexe. Goobjoogyaal ayaa sheegay in dagaalka socda uu aad u xoogan yahay isla markaana la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Intaasi waxay wararka ku darayaan in dadka deegaanka ay weerarka saaka ku qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab oo isku urursanayay duleedka deegaanka loona galay dhabaha sidaan uu ku bilowday dagaalka socda. goobjoogyaal la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dagaalka socda lagu dhaawacay gudoomiyihii shabaab u qaabilsanaa deegaanada kale ah Cadcadde iyo Cadaalixi kaasoo lagu magacaabo Yuusuf Cali Dhegnaas laguna dilay dagaalamayaal badan sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka. Dabiyaaqada bishii hore ayaa al-shabaab laga qabsaday deegaano badan oo uu ku jiray deegaanka Nuur Dugle oo dagaalka duleedkiisa ka socdo. tan iyo markii shabaab uu ku bilowday kacdoonka ka dhanka ayna wadaan dadka deegaanka ayaa waxa laga saaray shabaab deegaano badan oo ay maamuli jireen sanado badan waxaana gadaal dagaalkaasi ka taagan ciidanka dawladda iyo saaxiibadooda caalamka oo duqeymo dhanka cirka ah sameeya.